lama asxaabi meel walaad joogtaan kusoo dhawaada gabar Maria kuna soo dhawaada qisooyinka jacaylka saan nala wadaagtaan fikradihiina qisada nin wadaan imanka ay ciwaankooda yahay rajada loonta sida tan oo kale u dhacayso Shayma waxay ahayd gabadh aad iyo aad u fiican u firfircoon u kofta badan waxay tiri maalmaha kamid ah waxaan baranay wiilkii barasho kadib waan jeclaanay waqti badan oo soo wada qaadanay waqti dheer waxay tiri wiilkiisa dhawaan u jeclaaday jacayl iyo kalsooni dheer ayaan u qaaday inta ka bacdi markuu wiilku ogaaday inaan si dhab u jecelahay isaguna uu ii muujinayo inuu i jecel yahay marka aan isaga la'aantii aan noolaan kari waayo oo heer aan gaadhay inaan isaga mar walba aan wado walaa mar ay kulkiisa ii saarnaado waxaa dhacday tir maalmaha kamid ah ayaan dareemay dib ku dhac oo wiilkii soo jeestay waxay tiri waxaan dareemay inuu iga jeestay waxaan dareemay waxyaalo badan oo waayay sida farxadii oo kale wala cadayntii badneed anigu aan lahaa heer waxaan gaaray in bulshada ka dhaxbaxo aan gooni noqdo heer waxaan gaaray in telefoonka kaliya gacanta ku haysto aan sugo mar kaliya tooy soo waco balse nasiib darro inuu soo wici jirin jeer anigu aan waco waxay tiri kali socod baan noqday isaga dartii baan cadow badan u yeeshay waxaa dhacday in waxyaalaha qaar dadkii shalay cadowga igu maasadeen qofkan shalay isaga dartii dad badan cadow u noqonay waxaa dhacday inaan waayo waxaa dhacday cadowgayga isagu la saaxiibo isagu la socdo anigana cadow ugu yihiin sababtoo ay tahay anigoo dareensan dhibka iyo duruufta aan ku jiro haddana waxaan ahaa bashar wax jecel waan jeclaa waxaasna imay diirinayn kaliya isaga ii muuqday waxaan dareemay tir maalmaha kamid ah waxaan dareemay inuu iga jeestay waxay tiri waxaan xasuustaa bilowgii noloshayda jacaylkayga farxadda badnaa waayo koolkiisa aad ayuu ugu badnaa maxaa yeelay ereyadu dhahay aad bay farxad gelin jireen ereyada afkiisa ka soo baxay bilowgii jacaylkayga aad bay u farxad badnaayeen hase haatee imanka waxaan noqday kali socod waxaan noqday qof bulshada ka dhaxbaxa kaliya telefoon gacanta ku haya suugo koolkiisa mar uun inuu soo waco sababtoo ay tahay waxaan noqday qof bashar wax jecel oo xataa xumaanta iyo canaanta iyo diirinayn sababtoo tahay aniga waxba ma diirinayaan afkiisa canaan waro ka soo baxda aniga dhiirigelin bay noqon jirtay sababtoo tahay bashar wax jecel baan ahay waxaa dhacday maalmaha kamid ah waxaan dareemay inuu safar u baxay intaan safar ku bixin ka bacdi waxaan ku dhahay fiiday safar baa rabay inaan aado waxaan ku aniga ku baahanay soo cadabde waxay cadiban nafteede shaqin ruux kasteede qalbiga hayska siin ciyaalde soo cadabde waxay cadiban nafteede shaqin ruux kasteede qalbiga hayska siin ciyaalde